waxaa isugu soo biyashubtay degmada Ceelafweyn gudidii loo xirsaaray shaqaaqooyinka muddada soo noqnoqday ee ka dhacay deegaanada hoos yimaada degmada Ceelafweyn iyo waliba madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Saylici wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland culmowdiinka ugu waaweyn Jamhuuriyadda Soomaaliland colaadahaasi soo noqnoqday ayaa meesha uu nimidna hawl aad iyo aad meesha odag oo muddo socotay oo kulley bar iyo inaga calaamad foorxun qarankeena ku ah oo maanta dhamaanteen intii halkan timiday iyo inta naga dambeysaba runtii iyo inta kale in dhageysanaysaaba ay gurmad aan ka wada galayno sidii hawsha dadka walaalaha ah ee shaytaanku dhex shaqeeyay aynu soo afjar lahayn oo runtii dhowr jeer soo murkactay wadana waxa la yiraahdaa qadar Allah waa ma shaa facala weeyaan wixii dhacay muxuu dhacay in xageena ma taala diinta islaamka wixii dhacay Ilaahay baa qadaray laakiin sayna mar walba hadana aan ka dadaalno sidii waxaasi u sii socon lahayno maslaxadiina aynu ka talino sulh ay galno ee wada nimidna kulley marka arinta sida loo galay iyo ilaa maanta ilaa caawa aynu galay la qodobayn doonaa wixii naga dhiman oo noo soo dhamaanin dibadna sidee noogu suura gashay waqtiga u horeeyay aan furan karno loo gududegi doonaa runtii marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waana salaamayana insha Allah hawshan hareeraha ka joogaynayo inaan maartay hawshaasi aynu wada u dhabar adeegno oo muddada aynu intii doonta aynu qaadatee gaar ahaantii intiina kulli hawsha waata u gududegi doontee maartay u fadhi doontee alla u qadari doonay hawsha loo xuli doono ama loo soo xulay waxa laga baahan yahay inaad sabir badan iyo adkaysi badan u yeelataan iyo inaad maartay sida leeyahay xaasi ugu wanaagsan ee ummadaasi walaalaha maanta cid walba iyaga iska xiga maanta dhibto ka dhacaysaayo mar walba dadka aynu ka gurmanaa ama meel kasta dhib ka dhacayso waa intii isku xigta meel walba in meel kale iska soo duushay maaha wana si darooyinka haystay ka mid tahay in yaabtigo mar walba la kala qadaynayo ama laba walaalo kala dhaleen maalin kasta la kala qadaynaya runtii wana si darooyinka haystay ka mid tahay Ilaahay waxa ka rajeynaa inuu garab galo dhamaanteen hawshaas si khayr ay naga dhamaato waa Cabdikariin Jaamac Abdi TV-ga Universal Ceelafweyn.